inta aynaan horumarka u gelin balaan eegno xaaladda nabadgelyada ee deegaanku siday ahayd muddo 11 sano ka hor. anigoo ah Cabdi Axmed Cali muwaadin Ethiopian ah gobolka Qorraxayna degan oo gaarigana u iibsaday inaan baahida kaga baxo dhinac walba ay tahay kuna shaqaysto kadib ayaa kaaga heshay gaarigina iga gubtay hantida saarayna gubtay dhaqaalaha badan nabartayga burburay imikana bila camalana 35 sannadood wuxuu ku soo dhididayay la gubay ee waxba uma baxsanin naftiisu haday raacdana waa kadaalika ahayd isku mid bay ahaayeen meel yiraahdo isku doonayaan oo mareenay wadada loo galeen wayna laayeen anigu laba ilmood aan dhalay bay dileen iyo laba aan ayo u ahay abahay iyo adeerka iyagu masaajid ku jira iyo ugu galeen masaajidka ku dhexdii qofka xabad waa lagu dhuftaa oo dib male laakiin qof silig lagu nirjinayo ma ana arag waqtiga ka hor soo dhawaansho aanu soo dhawaanay wuxuu nagu soo tuuray bam waxaan ku waayay anigu laxadkayga qaaliga ah dhaayaha ama aragtida ama indhahayga ayaan ku waayay kolkay dhaafeen oo say dhaafeen baa mamkii tuuray maxamed daahir markaa daba ninkan bamkii dhacdu yidhi naga gaadhay yidhi saa u socdaba ayaa qorraxii indhaha ay ka galan magacayga waxaa leedahay Khadar Faarax Sagal waxaan u dhashay gobolka Fiqeed Nagob waxaan ka soo jeedaa degmadan la yiraahdo Koljanno gaar ahaan qabaleega la yiraahdo San Xaskulle ama Daalatiyo haddana dadku aad u aqoon okay marka aanu dhacdadii baan ka sheekeynayaa marka okay waxaan laga soo diray meesha la yiraahdo dulqabow oo qabardaar ah qoraxi ka tirsan xagan aanu soo kacnay waxaanu ahayn marka dad saddex hubaysnaa baanu marka iyada ahayn halkaas baan loo soo dhibay jigjigaad aadaysan gumbood bisha la yiraahdo 20ka bisha ah ya macnaha madaxdu ay shiru qabanaysaa dadka halkaas aadaysan mideen waan soo aadnay waxa naga soo horeeyay oo muddo 3 bilood magaalada ku soo jiray nin la yiraahdo Maxamed Daahir oo ahaa ina garaad Maqdal Daahir magaalada 3 bilood buu soo joogay marka asaga ayaa si lima bixinaya meesha qaabkan wuxuu qarxin lahayn saddexdana marka hubaysanaha waxaan ahayn iyo kan naga soo horeeyay inta waan sheegayaa saddexda hubaysanaha waxaan ahayn aniga iyo nin kale oo la dhihi jiray Besle ka kalena wuxuu ahaa mid reer Xabuura oo la yiraahdo Cabdi Basbaas oo reer Xabuura buu ahaa kan afraadna waa kan ina garaad Maqdal Daahir Maxamed Daahir jigjigu sii jooga marka 3 bilood sugu qaabkii marka noogu soo bixinaya anaga kadib saddexdanadii kale waan soo galay marka magaalada qoryihii baan maartay naga qaadeen meeshan la yiraahdo Karamardha oo xagan maartay la yiraahdo meeshan odo la yiraahdo karanka ina safriyay halkaas baan qoryihii iyo wixii kaga nimid badii kale dibadda joogtay annagoo caadi ama soo galay waxaan u nimid Maxamed Daahir oo guryo ka sikiriyay magaalada Jigjiga 3 qol oo ka reesnaa qabalaha Siraandi saddexdii guri baan marka ku soo tagnay waxa la sii joogay 3 seel ah oo magaalada ahayd oo la dhihi jiray mid magaciisa la dhihi jiray Cabdi Casiis Sanyare iyo ku kale oo la dhihi jiray inayisa iga maqan Shiine waa la wada garanayaa dadku ka kale saddexaad Cabdirasaaq Sheekh Yuusuf baa la dhihi jiray seel buu isaguna isla markaa ayada ahaa marka anagu 7 hubaysana waxaan ahayn 4 hubaysana iyo 3 seelka saa soo sheegay saddexdii qol baan marka deganayn muddo aanu malanayay inay 10 bari dhanayd iyo 12 bari waxaad ma garanayo baan guriga joognay guriga waxa joogay gabadhan maartay kulay gabadhan aanu ma garanayo si ay noo ogeyd laakiin hubaysana inaan ay weyn ogeyd laakiin aan farkan ku jiro ma garanayo gabadhii la jiray Kawsar gurigeeda lafteeda waa niman jiray oo u shiina deganaa isagana qol ay ka deganaayeen isku meel deganaayeen ilmaheer ahayn iyo walaalaha okay marka saasay ahayd gabadh kale oo la dhihi jiray Hodan way jirtay iyadana oo cuntada noo sameyn jirtay Hodan bal la dhihi jiray inaayaheed ma garanayo raqabtaarna ahayd baan aaminsanay okay saddexda qol baan marka deganayn isla markuu falkii gaadhay marka waxaan sameynay bamamka waxaan ku
sharaxnay wax baan ku tolay macnaha bamamkii Eritrean kala nimid bay ahaayeen oo aan afkan fiiqan lahayn kubad malaasanan bay ahaayeen marka waxaan ku sameynay si aan loo garanin markaan tuuro meesha loogu maleeyo wax farxad loogu tuuriyo damaashad wax saasa waxyaan kala lulay iyo maryaan dusha kaga tolay kala duwan oo kala marka saasay ahayd xilligii ay gaadhay gumboodii isla aroornimadii maalintii gumbood baa waxaa jirtay inaan la faylay qabaleega afraad baan la soo faylay cabdicasiis sanyare oo magaalada ahaa iyo shiina nala jiray annagu intanada kale hubaysana duur ka timid baan ahayn saddexdan seelkaaba magaalada aad loogu kala garanaysay oo lacala haddii xitaa mid boolisa ama ciidanka nabadgelyadu nagaba shakiyo naga qabanayo oo dhahayay waa saaxiibkay waa saas waa arday kuleej ka dhigta guday macnaha saas saasay ahayd waxaa dhacday marka inaan qabaleega afraad la faylay qabaleega markaan la faylay baa waxaa jirtay in madaxweynaha cabdi maxamed cumar oo markaa ahaa hoggaan inuu isaga oo macnaha qabaal wata uu agtanada soo istaagay baa jirtay isagoo fiirfiirinaya magaaladu qaabka macnaha dee shirka ay u tegayso baan qiyaasaya agtayda buu soo istaagay oo intan hadda samiicadda agteedoo kale ah saas buu noo fiirfiiriyey waxaa la socday niman federaal boolis ah baa staff u ah markaa waxaa jirta inuu maaragtay sidii aanu qabaleegii kula tagnay inaanu shirki sidii ku galay waxaan aaminsanahay inay jirtay jigjiga markaa qabale boolis oo qabale walba macnaha kaxaynaya saa u kaxaynaya booliskaasaa nala socday caadi dee nalamana baadhin run ahaantii hadda markaan xaqiiqada ka hadlayno sidan ma ahayn dee dowladda deegaanka soomaalidu ma ahayn annagu waanu xidhnayn laakiin dee waanu la socnay waxba nagama xabsaarin oo tiifiyaan noo yaalla guryaha waxaa jirta hadda arbaabatanaa ciidamo kale oo kala gedisano fara badan liyu booliska oo xoogga deegaanka ah ammaan ku sugan yahay naag gabadh foodley oo kaajaysa waa loogyahay de hadda waan ognahay anagu laakiin markaa iyada ah run ahaantii aad iyo aad bay u dadabacsanayd xukuumadda dowladda deegaanka soomaalidu ma ahayn nalama baadhin marka ujeeddada aan kale ahay waan gallay meeshii sidii baan ku gallay caadi sida shacabkii oo kale meeshii baan gallay boorar baan wadanay marka ay ku qoran yihiin xasuuqii cobole onlef mar buu dhacay mar dambe ma dhici doono xataa uba inaan la aqoonin baan aaminsanay markaa iyada onlef baa ku qoraa boodhka marka boodhasha ciyaalka baan ka qaadanay boodhasha annagu waanu soo qorramayn ahayn laakiin ciyaalkii qabaleega baanu ka qaadanay boodharka ona adeer waad gaaban tahay keen adigu anaa dadka tusi kara oo saas marka sidii baanu ku galay hoolkii meeshii shirka waxaa dhacday marka madaxweynaha iyo xukuumaddu inay soo galeen hoggaanka nabadgelyada oo ahaa cabdi maxamed cumar iyo madaxweynihii cabdullaahi xasan inay soo galeen baa jirtay markay soo galeen marka waxaa dhacday madaxweynuhu waxaan aaminsanahay hadda waxoogaa xusuustaa haddaan halmaansanayn inuu laydhku maqnaa oo mikrofoonkan kale ee caadiga ah ee dhagaxda lagu guro inuu ku hadlayay madaxweynuhu markaas madihii laydhkii wax taga ma garanayo cillad jirtay adigu istaaguu ku bilaabay markaa istaaguu ku bilaabay muna fadhiisan kursi waxaa muna ku fadhiisanin socodkuu socday khudbadiisa wuxuu ku bilaabay adigu waxaan ka tegay ilays bandi baa heesa noo qaaday marka uu ku jiro macnaha ninkii la dhihi jiray baalkii iyo dharjiqood gabadhan la yidhahday iyo heesa noo qaaday kadib marka madaxweynihii markaasuu xukuumadda soo gashay baa waxaa dhacday maamulku markay mas-uuliyiinta soo galeen oo taagnidii buu khudbadda ku bilaabay taagnidii markuu ku bilaabay hoggaanka markaa madaxweynaha oo markaa hoggaanaha baa intuu kacay buu dhegta af ka saaray wuxuu u sheegaya anu markaa ma garanaya laakiin waan qiyaasaya markaa inuu leeyahay macnaha meesha inaga dhaqso ama maaragtay aan iskaga baxno isbeddelun inuu wado dee shirkan aan lagu sii wadin macnaha meesha ah markaasuu afka ii saaray wuxuu yidhi anugu waxaan ku talin lahaa haddii anigaadi ogoshahay marnaba ha gelin meesha annaga haddaan rabnaa isla orodna mid markaa ee ag taagnaa baa warka wuxuu yidhi hadda waxaan malaynayaa inay macnaha baxayaan fursadda haddaan haysanaa hadda inaan ku tuuro weeyaan buu yidhi macnaha okay waan tuuraynaa baan ku dhi anugu marka anoo nagab joogay iga yeedheen nagab baan joogay oo hubaysanaa oo duurka iskaga jira waxaa jirtay marka inaanu madaxweynaha ku qoraa kan kale ee ila hadlaya hoggaanku markaa isagana ay ku qoreen oo cadibasbaas la yidhahdo
waxaa jirta daawud oo kale mid kale ku qoran oo waxa lagu isagana la yidhi aad ninkaas ku qoran tahay isla xilligaas bamkii sidii baan ku tuuray marka anigu bamkii markaan tuuray anaa tuuray markii horeysay aniga tuuray qayb waxaad ku dhax tuuraysaan xagga dambe oo ku yaraa seelasha waa amarkii la soo siiyay kan mas'uulka naga oo maxamed daahir oo ina garaad muqdal daahir adu waxaad ku tuuray buu yiri shacabka dhaxdiisa xagga dambe ah gadaal qadartood sanawiga ku tuuray madaxweynaha kan cad basbaas hogaanku isagoo ku tuuray kale oo Cabdirasaaq Qaayira adna waxaad ku tuuray baa leeyahay dhaxdiisa oo dhanka ankalsha si shacab u yihiin markaa oo idinka qaban macnaa ujeedadu wixii dhintay iyagu danka waa dad maaragtay dana gaar weeyaan oo shacabkan ma dareynayaan anigu markaan tuuray kaygii horeeyay madaxweynaha ku dhacay isla xilliga markuu kayga dhacay anigu waan baxay marka waan dhaqaajiyay waxa kale oo tuuray isaguna oo xagga ka tuuray in la dhigi jiray Cabdirasaaq baa tuuray isaguna oo ku tuuray xaggii kale ee jaranjartii maamulka tagnaayeen Cabdirasaaq asaguna wuxuu ku tuuray meesha la yiraahdo dadkii dhaxdiisa shacabka dhaxdiisa ku tuuray laba marka ayaa bamkii waxay dhigeen iyagoo oon biinkiina ka saarin tuurin meel kale oo tuurin baa waxay dhigeen meesha la yiraahdo ee dadkii dhaxdiisa meesha garoonkii bay iska dhigeen dadkii bay la carareen marka iyagu oo labadaas way cabsadeen bay ahayd marka bamkan falkan saasaan ahayd saan u waxaynay dhacdadan xun ee macnaha la yaab kale inta bay dileen baa in xabad lagu dhiftanayeen oo dhaawacay hadda sida uu soo dhiganaya ka yari uu sheegayo waa xaqiiq weeye dhaqdada annaga sameynay kan yar gacantiisa anaa lahaa ana xabada ku dhuftay ninka ii tulibina amarkii uu bixiyay ana xabada lahaa aabbayo annaga loo shaqo tagay ayay u bedeshay sagomeyn ayaa nala keenay taas u bawaxalay inuu ilaahay caloosha indhaha ka soo rido dumboodkii ayaan ka soo qayb galnay haddii aan ka soo qayb galnay talada ubo ay qarxisay bamkii ayaa igu dhacay aniga oo lugaha iga gooyey kabacdii walaashayna meeshii ayay igu dul dhimatay oo xabad baa iyadana madaxa kaga dhacday dhibka iga soo gaadhay dhibaatooyin badan baa iga soo gaadhay gabadhayda maydkeedii wiilkaygoo cagago'an baan arkay haddana gabadhaydii oo qolka maydka lagu tuuro taalaan arkay wax iga dhex maroo iga qaadan waayey wiilka lugihiisii iyo gabadhii baan isla soo qaatay carabka iyo labada dhogood bay iga gooyeen dharkaygiina way igala baxeen anoo mudh iyo adaradahay oo dhiig baxaya isaga kay tageen 12 saac baan meel jiifay oo aan iska aalay waqti dambe aan saarkay anigii oo ay xawayaan oo dhan tuusu ka yimaado quraantada saa ay cunayso marka waxay dhaheen waan ku dilaynaa waa sheegtay weli waan kuu janno tagaynaa marka guduntii aan anigu qarqar ku watay geela ku watay ayaa la ila dhacay labada lugoodba way igala dhaceen saade iyo meelo badan bay gooyeen mana gudunta haddaan ku socdo shariifka dhacdada qayrada xun ee nuu geysanay rag aan nafki gacanta lahaabana xabad maanaa ku dhufanin toorri baanu ku gowracnay haddaba kadib markii dilkii dhicii boobkii iyo kufsigii ubadu oo cid walba taabtay isla markaana gumaadkii shacabku uu tiro beelay ayaa waxaa dhacay kacdoon shacab oo dal iyo dibadba lahaa bal aan eegno kacdoonnadaasi mid ka mid a shacabkii dadka baadiyey
meesha ku shirsan inaannu ka sheegno oonu adduunka ogeysiinno inayna dadkaasi waxay matalaani jirin dhibaatadaas markii ay shacabka gaadhay ee xaaladda nabadgelyo darada ee deegaanku cirka isku shareertay isla mar ahaantaana uu amnigu faraha ka baxay kacdoonada shacabkuna ay dhaceen maxaa xigay maxamed oo xukuumaddu qaadatay faaraxow waxay xukuumaddu qaadatay in ugu horeyn la dejiyo qorshihii nabadgelyada ee ugu horeeyey iyada oo kadib markii qorshahaasi laga hirgeliyey heer deegaan kor ilaa iyo hoos loo dhaadhacay gobolladii iyo degmooyinka deegaanka si loo nadiifiyo qaab dhismeedkii xadhig maranka ahaa ee ka jiray iyadoo shirar wadatashi ah oo loogu soo bandhigayo qorshaha nabadgelyadana lala yeeshay guud ahaan shacabweynaha deegaanka haddii aan soo qaadano shirarkaasi qaar ka mid ah bal aan ku horeyno shirkii fiiq iyo hogaankii nabadgelyada ee xilligaasi oo ah madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya ee hadda mudane cabdi maxamuud cumar hadaladii taariikhiga ahaa ee uu ka soo jeediyey waxa adigu aad awood ku kari weyday oo carab kale inaad ka hadasho tabarlaan ma qalbiga inaad ka nacana tabarlaan ma waxa dareed ma sheegin haya qaadan iga dayda laakiin wixii ma taqaanaa xataa heesaha ee inaga yiili kaba iyo dadkaba dan waa meesha ilmaha qaata xabban ku yahay hadda waxaan toobiyey nabadgelyo hadda toobiyey wadda toobiyey oo aqoonta midaan guriga sidaas ugu soo laabay maxay tahay nimankan iyo booliska oo awood loo yeelay oo tayo loo yeelay waxaan awood sana ugu yeelay gooni taas ku taagay oo raadiga loo sameeyay oo telefoonka loo sameeyay oo mushaarka loo dabaro oo hogaaminta loo sameeyay iyo waxa weeyaan meesha galaan begin meesha galaan يجلس كم بعد الشراء ضمن تعال تقاطع حتى تبع الشراء تسكن وما شاء الله في القوم ده الشراء حر مرينات بيعتبر نادي بندق وآخر سنة قلت له وانا سكينني من يقرأ أنا في إلى مدرك شو تو أنت إلا يعيو حيثو وعنيجي يكيل نفكر كيسوني يبكر ما حتى أما ما يقول أنت يذكر لك يقول أنت دي كتاب ما كسينا قلنا ده وحن أقول إن أعرف هدف أي كنت يا مرب أي كنت إن أي لعب أنا أي كنت أنا لعب لكن عرسي أي كنت وحن وصيو علايس أي كنت أنا وحن وصيو عرسي أي كنت يا على شغلين إيه تذكر كركسينسو نوها بنقولي لكن أنت ما أنت هدف كنت عرسي أنت عرسي كنت عرسي أنت عرسي كنت عرسي ما تعرف سوا أنت عرسي كنت عرسي سلم بالغ كنت عرسي أيابا ذكر لي دبنا استلمنا وأنا إن شاء الله تعالى مدير جابا بديه حدي إلهي قرشان هو الجريو وحن أوسنا إن الأولى وتنبئ أن نكون يعني من يقرأ من ذلك سمعنا كرتي عدي كيسمه وكدقنا وسكيتنا maxamed oo shirkii qorshaha nabadgelyada lagu soo bandhigay kuma ekeyn fiiq ee waxa jirtay in dhammaanba gobolladii iyo degmooyinkii xilligaasi uu shirarkani ka dhaceen bal haddaba aynu eegno shirarkani gaar ahaan shirkii dhagaxbuur kadib markii ay xukuumaddu qaadatay in qaab dhismeedka guud ee deegaanka la nadiifiyo isla mar ahaantaana la soo nadiifiyey heerarka kala duwan ee qaab dhismeedka xarunta deegaanka loona gudbay gobolladii iyo degmooyinkii deegaanka sida loo soo yeeray salaadii waa waxaan ku soo gaarnay magaalada Dhagaxbuur ujeedada idila sheegno oo ka wada hadalno danta shacabka deegaanka Soomaalida gaar ahaan danta gobolka Dhagaxbuur markaas la yeeray waxa weeyaan dadka ayagu ku jira xalka aqliga ku jira wax gooni laga qofsiyo maaha laakiin tashiga marka la tashado ayaa xalka la gaaraa xalkana waxaa la gaaraa marka dhibaato timaado adduunkan oo dhan waxa weeyaan xalka iyo dhibaatada horeysa dhibaatada markay dhacdo baa xalka loo raadiyaa marka dhibka jira sidii xal ugu yeelaan in laga wada shaqo u baahan yahay socdaalkanagu wuxuu ahaa mid ku wajahan noocaas oo wada tashi ah weeyaan marka taa marka tahay waxaa loo baahan yahay
in dadkii dowladda loo ahaa iyo ciddii xilka u dhiibteen ay wada tashadaan oo ay danta ka wada tashadaan marka socdaalka anagu taasuu ahaa wax badanna waa ogtiino wax hadda maanta anagu aan lagu soo kordhinayno oo idaan ogeyn ma jirto nin og oo ka samaynaya ah iyo nin og oo ka aamusan iyo nin og oo la dagaalamay ma isku dhex fadhinaan waaba intaa kii samaynayay halkan buu fadhiya kii diidanaan halkan buu fadhiya kii ka aamusnaana halkan buu fadhiyaa waxayna ogeyn oo anagu aanu sheegi oo wadna ma jirto inta way idinku baaheen marka waxaan nidhi sababta heerkii maxaynu ku haynaa madaxafiisadeedina waa maxay ma ka madax bannaan yihiin kolkaasaa madaxafiisadada gobollada iyo degmooyinka qabsan karna heerkii markaan nadiifino markaan ganacsatada heer deegaan joogta nadiifino yaa kuwa dhagaxbuur jooga nadiifin karna kolkaa shaqaalaha heer deegaan joogo ee caasimada joogo aan nadiifino yaa kuwa mataqaanaa gobollada jooga nadiifin karna saasaanse bal maanta su-aal baa weydiina cariyahay jooga bal ninkii xalay ka seexan waayey biyo-la'aanta haysa deegaankeena gacanta kale sakaraad ka noqday ee walbahaaday ee iswadi waayey ilaa haddii ilma yaroo kale xanuunsato waa istaagi habeenkoo dhan saas aday ilma yaroo kashaaqo xanuunsato haddii reerkaa wax ku dhacaan ka seexanaysa bal ummaddan dhan ee biyo-la'aantu haysa nin ka seexan waayey ee ku jirta markadan kanayo gacanteeda ninkii ka seexan waayey ee ka walbahaaday ilaahay oo horumarsiinin kayda xaalid maceeyey gacantaada ma jirtadib dadkooda dareemayna waa runta halkaas oo qaad haddaba markii hoggaankii nabadgelyada ee xilligaasi oo ah madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya ee hadda mudane Cabdi Maxamuud Cumar uu shirkii dhagax buur qorshihii nabadgelyada oo faahfaahsan uu soo dhigay isaga oo ka duulaya dhibaatadii uu nabadiidku ku hayay shacabweynaha deegaanka iyo waliba xaaladii dib u dhaca iyo rajo la'aanta horumarku ka muuqatay maxay ka dhaheen culimaadiinka dhagax buur gaar ahaan haddii aan soo qaadano Sheekh Cabdi Qalinle oo imaamka ah masaajidka dhagax buur in ka badan 35 sano isla markaana ka mid ah culimada caanka ah ee deegaanka kadib markuu dhageystay qorshihii nabadgelyada ee loo soo bandhigay sheegay in urtii ugu horeysay ee dawladnimadu ay hadda uun timid iyo waliba in ay waajib ku tahay shacabka in qorshahan la qaato lana garab istaago hogaaminta qorshahan dejisay maadaama aysan jirin maalin uu ka xun yahay shacabka deegaanku isagoo ifiyay in qorshahani uu yahay mid sax ah oo dan iyo damaanad qaad badbaadaba u ah shacabweynaha deegaanka iyo culimaadiinkii kale hadaladii kale ee ay ka yiraahdeenba aan wada daawano. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. iyo waxaan hadalka aad badan laakiin waxayga haray oo inta haray hadda kadib la soo marin ee ma jiro Allah sa'a keen bas jira sa'a alhamdulillah rabbil alamin kolka u horeeyo waxa weeye qolada madaxda ee nootmada sharafta leh wixii ay la socotay hawsha keega ay haysaa waa hawl waajib oo farq iyagana farq bay ku tahay inay hayaan innagana waxaa farq inagu ah inaynu qaadano maxaa yeelay nin walba waxaa lagu soo dhigay waxan waa munkar iyo hortaada la soo dhigay intaa oo qulun iyo intaa oo qulun oo wada ama kufri ah ama macsiyo fogtiina dheef jirin ah waxay ka shaqeynayaan waa taas xideedii haddaad la qaada aynu la qaadan weynaan dee aakhiri adduun midna uma hadne labada daarood inaynu sheegna keliya weeye ayaan ku socnoqona dariiqankii noqona danta aakhari iyo danta adduun inaynu adeecno maanta waxay la socdaan aynu ku adeecnaa waajib ninkii waxaa qaadan waayaan ahlunaar waxa weeye yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum ulul amarkii sidaa ahaa ee shayga xaqa awaday diiday weeye oo waxa weeye waa diindiid waa nabadiid waa danbax waa ninka danbax ee dantiisa aakhiriyati adduunka ka bax intaas waa taas dadweynaha soo jeedinaya hay'ad walaalayaal taa danta maanta la wado aynu danta ka go'an
iyagana waxaa kaloo waajib unagaa inaynu kuna mahadnaqno garabna aynu siino ayaa waajibno maxaa yeelay intaa oo sano yaala waxa kibar baa dhisan waba hebel baa wasiir hebel baa kuwaa un leh wax la qabtay oo la taabto subax aynu ka dulli badan lahay adduunka hore weligeena maynu soo dulligaasina xuquuqadii la dhigay iyo tan eegiya way raadayaan yuxdhac tan eegahayaana meesheedii la garmariyey shareecadii la garmariyey maamulka islaam kortu mari lahaa la garmariyey ilaahayna aynu ku mahadin hadhow waa doon doonaa gaalkii ina hebelaha iyo gaalkii ina hebelaha annagu waxaanu leenahay gaalan leh waa muslim keligood baa ilaahay soo saaray urti uhri sagi saaqan saaka hadayaynaan dabamarin hadday sacabkaas idinka dhab yahayaynaan dabamarin gadeeni waa gadeeni fadba kobtaynuna sheegna ka soo intiifto aynu dabamaro yaa weligeeni ururada nabadiidka maxay yihiin oo shareeca islaamiya maxay ka qabtaa culimadii hore si fiican bay uga hadasheen ururada nabadiidka waxaanu leenahay marka hore waana nabadiid waana nololdiid waa nabadiid waana nololdiid faaraxow kadib markii la dejiyey qorshihii nabadgelyada qaab dhismeedkii guud ee deegaankana la sifeeyey dhalinyartii ka gadooday dhibaatadii ay uba ku haysay shacabka deegaanka ee heshay hogaaminta maskaxda caafimaadka qabta leh ee ciidanka booliska gaarka ah ee dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya dufcadiisii ugu horeysay ee 1999kii ugu xarootay jinacsani tababarka maxay ka dhaheen alla qarafaystayo kugo qolqol meeriyo kugo qarafaystayo kugo kugo qaylada qaxootiga qarafada shisheeyo haday adi wax ku qaban qarannimo ana iskale adiga abaabna kuwan duurka jooge dibadaha wareege waxay danab yalaayeen amay daara dumiyeen diiwaankay ku qoran tahay durusteennu waxay tahay diintana ku taal dabargoynta ubo adiga aabbahaaba allah ku yar amiin
حليف كويلة باي برايرة يديسي أجناني ما في عليوينا نسوريا أجناني ما في عليوينا نسوريا نيمان بانا قبلين حوني بديريا أفرحالة توقع وبوكا بوغري أفرحالة توقع وبوكا بوغري أفرحالة توقع وبوكا بوغري قرتي aqoonyahanadii cadowgu gogoyey siqiir gowricii maatadii oo gacalka loo geystay gablanka hooyadee la baday gagiida leeleelka haddaynaan ka gumanoo shacbiga gasinin gacan fiican warguur kama helayno faqran gurubsanaynaa bal aan eegno gabdhihii dufcaddii ugu horreysay ee ciidanka booliska gaarka ah ee jinacsani 1999kii intii ay ku jireen tababarka wixii ay ka dhaheen dhaqankeediiba bulshada shaamareer ku riday gabdhahaya shiishayo jidhkooda rasaas ku shidayo shabadaya ilka dhigay xabaal ku shareerayo shisheeye ka iibsado ula tegay haddana sheekh dila sharif dila shabadila sharcigeena maahe shiftada la dagaalamo shiid yaa muslimiin waxaa xusid mudan in aasaasidda ciidanka booliska gaarka ah ee dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya oo ku yimid ilmadii shacabka loo soo xidhay tababarkoodii koobaad ee jinacsani iyadoo halkaasi ay ugu duceeyeen odayaasha deegaanku si ay uga dulqaadaan dhibaatadii ay ubadu ku haysay sida uu cadeeyay hogaankii nabadgelyada ee waqtigaas oo ah madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya ee hadda aasaaska ciidanka booliska runtii waxaa loo soo maray ama lagu soo bixiyey waqti iyo fikir waxaanu idiga doonaynaa sidaa aad u dhaarateen inaad ku fulisaan annana aydugu garab galno annana inaad ubateeyagiitiin oo dhibta idinla galayno oonu idindaba taaganahay dhanka kale markii ugu horeysay ee ciidanku u dhaqaaqay howlgalka kadib markii uu dhamaystay tababarkii ciidan lahaa oo dhammaystiran isla markaasina loo dhammaystiray hubkii iyo sanadii ciidan lahaa maxay yiraahdeen miyaan diinteenna odhan ninkii dulmiya iska celi kuwii gacali xigiyo kuwii gacantaydii midig intay guryo ugu galeen horteeda ku gowraceen garaa daranaa shuftadu waxay ii geysatiyo duhoraanu gubanhayaa marka hore maraanow sharciga ku maamuli agoontaa mirteeniyo matidaad dhacayseen maryahaad ka furaateen waa laga magdhabayaa maalmadabadood ila muruga marehide adoo miliicdayaalaad kumaadsadoona ina maalmadabadood ila muruga marehide adoo miliicdayaalaad kumaadsadoona ina maalmadabadood ila muruga marehide adoo miliicdayaalaad kumaadsadoona waxaa la yidhahaa magacayga ciiro jaamac cabdi waxaan aad u rajaynayaa inaan guulaysto oon si wanaagsan u guulaysto oon nabaddiidka iyo shubtada iyo injirleydaba aan tirtiro taayirka aan ku laayo
dalkayga iyo dadkaygana aan si wanaagsan ugu shaqeeyo taayirkana aan nimankaa ku laayo nabaddiidka farsamo kastaan oo ay samaynayaan waa la garan uma qabsoomayso raadkoodaanu magaranaysaa qaadahaynaa goob alla goobtay tagaan baanu ugu tagahaynaa onkooda hanqadhe ololiyada liyuu boolisaho anaguna baalkooda ilaawi doono anaguna baalkooda ilaawi doono keyntaa un baanu iska wareegnaa ma garan haysaaye qaadile udgoon raashin layidhahdoona daba duulaanu wadanaa midhahaanu sii hiiganaa biyahaanu sii darsannaa hooyooyinkii iyo ilmihii aabban baan madax u sii sallaaxnaa keentaanu aragnaanu gallaa haartaanu iska fuullaa jexjexyadaan xullaa carradii xaafaasalaamay noqdeen xaafaasalaama markay gidhaashadaano naqshadaha wey haddana ganaa baanu mooraal iyo maskax u sahaynaa aanu ku sii qadilaynaa baabuurta tilmaam salaam jooga 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 شوف علينا وصوت الإخوان meelanti mariniyo qaadaya uraha ciddaa jiraaliyo miyuu jiilayaanahay uraha ciddaa jiraaliyo miyuu jiilayaanahay meel kastaba ha joogta ee u baada jaa wareersani markaan soo joogsado ayay jabaqda daysaa markaan soo joogsado ayay jabaqda daysaa meel kastaba ha joogta ee u baada jaa wareersan markaan soo joogsado ayay jabaqda daysaa markaan soo joogsado ayay jabaqda daysaa waxaan jeeni qaarkiyo shadada ugu jiilahay biyuu samaha jecelo salka inuu joojiyo nabadda jiinayaanahay nabadda jiinayaanahay waxaan jeeni qaarkiyo shadada ugu jiilahay biyuu samaha jecelo salka inuu joojiyo nabadda jiinayaanahay nabadda jiinayaanahay
دوليو يا حبيبي كمالمو يرسلو مجسدو اليوم يا حبيبي كمالمو kadib markii uu shacabku arkay natiijadii uu durba ciidanka booliska gaarkii ka soo hooyey muddo hal sano gudaheeda shacabka oo ku diirsaday natiijadaasi maxay dhaheen gaar ahaan haddii aan soo qaadanno shacabka reer dhagax buur waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa baan kuleenoo gacan ku siinaynaa hoggaanka nabadgelyada cabdi maxamuud unbay nabadgelyadu horta gebigeeduba sugaysay guulo badan uu ka soo hoyay waxaa kaloon hambalyo siinaynaa ciidanka new police ee heeganka 24 saacadood maseexdayaasha ah ee halhal u guray nabadiidkii nabad baan iminka ka saacanaa waxaad dadka boobaysa ya eebaadiyaha dhibaysa ee annaga na dhibaysa ya عندي بالي نقل طالع سولو نقل طالع وأنا مشينا دي واحد شيء يمكن مشينا ولا وتقوى dhanka kale ciidanka booliska gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hawlgalkoodii ugu horeeyay guulihii ay ka soo hooyeen ee lagu diirsaday kadib maxay yiraahdeen shuftadan ay tirtirayaan shacabkuna ha taageero wuu si turan turine iyagoo tacliin qatayba meel kastaba taagan uma turine laabtay rasaas kaga tantoomene ka takarisay tugtima xumo naarti wuu tagiye tumalay berray tagahayan tudida carreeye turaros bawiya taagintii taniya huslayo wartinku bunaya tuuladii hadhadyay dhex tamashlayne nolosheenni way taagantoo tirkii u adkaaye isku tirsanaan bay gacmuhu tabar ku yeeshaane toosaay tolow horumar baa loo tartamayaaye madaxweynihii dibaddu tago tarka soo diraye kuwiina cismaan tuugsan jiray toos waxuugu sheegiye ambalaastiyoo taagan oo xabal lagu tuuray ololkeedii goortuu tusay cadhan la taayene wuu ka soo tigtigay meel kastee taha la ogaado badbaad shacabku kana bogay hurdada baylah laga raysay bamba laguma tuuro huteel bogdad kama boodo qarax lalama begsada bulshadu meel budhay tahaye wartug baladka kuma badha ruux waa samad bariye arbaabatana loo bogo bay raq shacabkiye farxad bay la boodhadhiyeen baxday nabadiye miyuu boolis baacsade shuftaadii baadidahayde burahay ka daydayan hayaan baaqigii adhaye kuwiina bahdilay iyo u baybaadhayan weliye meella kama bannaano dhigtii boobaha simaane warbekeemkiyaa kii baska lagu daye bagadhaha birtaa laga aslayo babax laga siiye wiilasha barahalihii dagal way u boobtamiyeen birlab awliyaa weeye iyo baska oo kalaaye war birlab awliyaa weeye iyo baska oo kalaaye baarimaha dad yeelataan kama baxaysaane dantiiya runtii beratantan soo bandhigayaaye beenaaluhu dacay dhala buun idin tumaye bidhi qaatay idin iibsayey baadinimadiinna bagadhaha birta laga aslayo baba laga siiye annana wiil baxnaansamo loo bogiyo barqabnoo dhalaye basar xuma ma yeeliyo wixii diin ogaadeene war baadi shacabka eediyo hantidad boobku qaalateene bisinkannu bogduga dhigniyo bariya yaasiine madaxweynaha duco qabo shacabkii daawowye ha degdegin midkaan doorannowo dalka u raage cadowgaaga dufan la lala iyo dabayl qaada degdegee bahayo woogu keen daa'imnimadaada
noona daana deeqye alloguna daadihiine qur-aankanu dayruga dhigniyo diinta eebbahaaye qur-aankanu dayruga dhigniyo diinta eebbahaaye dadweynuhu dantiisii iyoga daacadkii u ahe iyo kii daldarayeeraha weydin darajayne labadii dugaagkan diliyo kanu diili doonno dibu dhacayu geysteen dadkanu dib ugu hadoye degma weliba way doonato waa la daydayaane kama dawarsadaan reerihii looga dacareeye dariiskeenna uma geli karo damacye beenowday ciidamadii dalka meel kastaba daayirow xidhaane liyuu booliskii dananayaa lagii degaye war liyuu booliskii dananayaa lagii degaye difaaci qaranka weeyaan kuway daawan shacabkiiye maleesiyaan daalayninbaa saaran dudaaye dibna uma arkayno shuftaadii waynu dabargoyne dadweynow halkaa igu darsada duunu hadalkayga danna waynoo wada tahaye ducadan aamindhe nadeeqye alloguna daadiyeene qur-aankanu dayruga dhigniyo diinta eebbahaaye qur-aankanu dayruga dhigniyo diinta eebbahaaye qur-aankanu dayruga dhigniyo diinta eebbahaaye guulihii uu ciidanka booliska gaarka ee dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya ka soo hooyay dhanka nabadgelyada muddo gaaban gudaheedna maxaa ka mid ahaa hawayeen u bayga waa walaalkay ani Axmed Nuur hooyadaanadina wada dhashay waadaadiga weynadaan waan ka yaraay hooyadaanadina dhashayna soo wada korisay xaalay habeen hore baan sii deeyay arlada ka badan waliga waan weydiinaa inuu lacag si waliga yaalihi iyo in kale waan weydiinaa bal hogaamintii uu bay ugu dambeysay ee la soo qabtay iyo hadaladoodiina nala daawada basay markii dambe markaan u tagay ay noqotay waxa weeye afarin baa waxa la yiri kontrabaanaysta aan jiray afartii nin baa waxa la yiri nin meel degan oo reer haysta u yimaadeen waxay yiraahdeen awrkana si aanu kontrabaan ku soo qaadanay awrkii bay ninkii yiri markii hore uu diiday markii dambe awrkii siiyay awrkii markii siiyay awrkii kaxeeyeen awrkii mid uu gar qaaday midna wuu fuulay midna dabadu qabsaday midna awrka raadkiisa soo qaadbalay markii la socday meel cagabay oo awrka raadkiisa la arkay markii la marayo ayuu kii daba socday baa u dhawaaqay nimankii saddexdii kale wuxuu yiri war awrka raadkiisa uu iga lumay bal jooga awrkii intii lagu xiray yee saddexdoodii dib u soo noqdeen waxa la yiri war awrka raadkiisa xagee ku ugu dambeysay wuxuu yiri halkan ay ugu dambeysay awrkii geed baa lagu xiray sida awrka raadkiisa mar dib loogu qaaday mar xagga buu gobolkii dhacay awrkii duuraaba cunay markaa awrkii markii duuraa cunay yaa la yiri maxay yeelay aroorti waxay yeelay baa reerka halka degan looda joogtay soo qaad looda marka badna awrkii inuu ka gaday aan wadka lahayn ee leeyo dhiibay badna way muddo hawsha kale ku qabsanayna loodii baa la soo qaaday loodii markii la soo qaado meel dhaxal la marayo yimid wuxuu saacadiinkii waa mar curad ku kala yiri ma aha waa laba dhal oo maxaynu ku murmaynaa baa leeyahay waynu baynu soo weydiino dib baa loo noqday kolkaas qoladii looda lahayd oo ordaysa u tiri marka dib kiila la dilay marka saddexdii kala soo yaacday mid baa bohol galay midna geed buu fuulay si loo soo dawardayay baa kii geedka fuusanaaba la arko waxa la soo tir kii boos ku jiray wuxuu ku yiri imsa jeer baan ku yiri warbaasa soo gal isna sidii baa lagu qabtay labadiiba waa la dilay kii kale laga daba booday kii markii laga daba booday reertay gabar buu yiri qari karbaas buu ku degtay waa loo yiri waxa la yiri kalka ordayay ma aragtay waxay tiri ma waxa ma arag intuu kor soo bixuu karbaas ka tuuray buu yiri inaad warwaad maasanta hadaad qarisay kiina halkii baa lagu dilay afartii horta halkii baa lagu dilay marka uu markaan hadda hawsheeda qaadi horta saasay noqonaysaa maxamedow ma ahayn oo keliya gudaha deegaanka meelaha ay ciidanka booliska gaarkii ka soo hooyeen guulaha ay ku ciribtirayeen ubay iyo Al-Ittixaad balse waxay howlgallo taariikhiya oo ay 10 lama ilaawaan ah ugu dhigeen ururka argagixisada ee Al-Shabaab howlgal ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya iyagoo kadib markii ay meel saareen cadowgii dibadda ee shacabka dalkeena gurmad u galay badbaadinta shacabka Soomaaliya ee aynu dariska nahay meeshan hadda horta aan ku soonahay waa Galsweyne waa tuulaha Galsweyne oo hadda ka hor ay deganaayeen nimankii Al-Shabaab deganaayeen ibnu Cadaha
calankan hadda aad aragtana waa koodii annagoo markaa kasoo kaga nimid annagoo ah ciidanka dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaa marka maanta waxaan ku sugannahay Garsweyne oo kaga nimid dhankan waxa weeye xuduuda ayagoo hadda ka hor waxa weeye soo weeraray gudaha Itoobiya qabla kamid aata oo waxa weeye gudaha Itoobiya soo galay ayaa barbaha xun waxaan ka soo dhafanay Lehelow marka waxaan ka soo qabsanay Lehelow Sariirad Duugal Shimbiraale la galay iyo Habdhuure maantana aan ku sugannahay waxa weeye Garsweyne ayaa maanta hadda waxaan dejinaa calankoodii hadda waxaan dejinay waa calankoodii annagoo haddana saarayna calankii dowladda Soomaaliya saarayna al-shabaab dejinayna calankii magaranaysa Soomaaliya aan saarayna ayaga oo maamulka gobolka Bokool la magaranaysa aan hadda wadaadada ballansanay oo ay nagu soo dhow yihiin leena wareegi doonaan kuna wareejin doonaan magaranaysa meesha war dejiye baalki بسم الله الرحمن الرحيم والله تليها رئيس الوزراء محمد الشيخ محمد لفص halkaan waxaan kaga hadlaynaa howlgalka ballaaran ee diirsaday gobolka Bokool guud ahaan ka socda waxaan balyo iyo taaniyad buuxa u diraynaa ciidamada NUU haddaba Faaraxow ciidanka difaaca qaranka ee dalkeena gaar ahaan taliska koonfur bari ayaa guddoonsiiyay ciidanka booliska gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya shahaada sharaf iyo bilad geesi kadib guulihii ay ka soo hooyeen dagaaladii ay ku soo afmeereen ururadii nabadiidka ahaa ee Ubo iyo Al-Ittixaad iyo waliba howlgalladii ay ka fuliyeen dalka dibadiisa gaar ahaan dalkan dariska nahay ee Soomaaliya ee ay afka ciida ugu dareen ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab iyagoo oo caawinaya shacabka Soomaaliya ee daris wanaag inaga dhaxeeyo taliyaha ciidanka difaaca qaranka ee koonfur bari dalka Itoobiya Lieutenant General Abraham Waldemar Yemaya waxa uu ciidamada liyu booliska guddoonsiiyay shahaado sharaf iyo bilad ay ugu tala galeen taliska koonfur bari dalka Itoobiya taasoo ciidanka liyu booliska ay ku mutaysteen guulaha ay ka soo hooyeen la dagaalanka ururka argagixisada ee Al-Qushaash sidoo kale markii ciidanka booliska gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kaashanaya ciidamada difaaca qaranka ee dalka xukuumadda deegaanka iyo shacabka deegaanka ay soo afmeereen ururadii nabadiidka ahaa ee Ubo Ittixaad iyo Al-Shabaab ee ka dhaqdhaqaaqi jiray gudaha deegaanka iyo dalka dibadiisaba ayaa waxa loo qabtay munaasabad gaar ah oo si heer qaran ah loogu abaalmarinayo ሽልማቱ ላይ ጽሑፍ አለው። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የነበረውን ሀገራዊ የደህንነት ስጋት ለማስወገድ በተካሄደው እልህ አስጨራሽ የትግል ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግስት ልዩ ፖሊስ ኦነግን በማጥፋትና ብሎም የሀገራችንንና የምስራቅ አፍሪካ የሰላም ጸር የሆነውን አልሸባብን እስከ ሶማሊያ ድረስ ከሰራዊታችን ጋር ዘልቆ በመግባት አልሸባብን በመደምሰስና አሁንም አልሸባብ ለማጥፋት የተካሄደ ባለው ተከታታይ ግዳጅ ላይ ወደር የሌለው ሀገራዊና ዜግነታዊ ግዴታቸው በላቀ የአርበኝነት ወኔ መስዋዕትነት በመክፈል ላበረከቱት የላቀ አስተዋጽኦና ለተሰዉት የኢትዮጵያ ሶማሌ ጀግኖቻችን ክብር ይህ የምስክር ወረቀት በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ስም ስናበረከት በአንድ ሀገራዊና ብሔራዊ ልብ ሆነን ህገ መንግስታችንንና ህገ መንግስታዊ ስርዓታችንን
ለመጠበቅና የሀገራችንን የህዳሴ ጉዞ ቀጣይ ለማድረግ በመስዋዕትነት የታሰረው ቃል ኪዳናችንን ቀጣይ እንደሚሆን በልበ ሙሉነት በመግለጽ ጭምር ነው። ጀነራል ሳሞራ የኑስ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት abaalmarintan waxaa ku xardhan qoraal kaas oo ah waxay geesiyada ciidanka gaarka ah ee liyu booliska deegaanka Soomaalida Itoobiya ku guuleysteen halgan adagna u galeen soo celinta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka oo ay tirtireen ubo iyo alqushaashtii carqalada ku ahayd deganaanshaha iyo xasiloonida dalkeena iyo bariga Afrikaba waxay halyeeyada liyu boolisku ku guuleysteen iyagoo kaashanaya ciidanka difaaca qaranka ugaadhsiga alqushash iyagoo ugu tegay dalka Soomaaliya oo ay ka gudbeen xadka dalkeena waxayna muujiyeen geesinimo qarannimo wadaniyadeed oo ay kaga soo baxeen waajibaadkooga waxay tirtireen alqushash una diideen inay haweystaan dalkeena dadaalka iyo geesinimada ay muujiyeen geesiyada ciidanka gaarka ah ee liyu booliska deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa abaalmarin sharafeedan lagu guddoonsiiyay magaca ciidanka difaaca qaranka waxayna sii xoojinaysaa nidaamka dastuurkeena geediga dib u urashadeena iyo ka soo bixida ballanqaadkeennii geesinimo General Samura Yonis abaanduulaha ciidanka difaaca qaranka ayaa ku saxiixan abaalmarintan You police can't think it's وياني دولي جررنا فابر سلان تسكي ياهو يجكرنت قدر وراهي ناسيمي بشاول برها بقول ببو عفدي سايطاليا تسرا شماقين شمكة بوقادين مدر سلاند الاستهار لهزبو شكر والول يسكرا بسرو سمو قنو بلاي اندان مازور بسات تفتنو ميكاناين لاغر كبير راي الله يتبالي ليو بوليس تاريخ سرطان لهاجر لوجانو مسلاكس تمرت فترو تاريخ سرطان لهاجرو والول يسكران بسرو سمو قنو بلاي اندان مازور بسات تفتنو ميكانايز لاغر كبير راي الله يكبره ليو بوليس تاريخ سرطان لهاجر لوجانو አንተ ልዩ ፖሊስ ያንተ ድንቅ ስራ ወያኔ ደወሌ ጀረርና ፋፈር ስላንተ እስኪ ያውሩ የጀግንነት ገድል ኦራሄና ሲቢ በሻውል በረሃ በዱር በቦአፌ ሳይቷል ያንተ ስራ ሸማቂን ሸምቀ በኦጋዴን ምድር ስላንድነት ስተሃል ለሕዝቦች ክብር ወልወል ይዘከራል በስራው ስሙ ገኖ በላይ እንዳልማዞ በእሳት ተፈትኖ ሜካናይዝ ለአገር ክብር ራዕይ ያለው የከበረ ልዩ ፖሊስ ታሪክ ሰርቷል ለሀገር ለወገኑ ምስራቅስ ትምረት ፈጥሮ ታሪክ ሰርቷል ለሀገሩ ወልወል
haddaba haddii nabadgelyadii meel la saaray horumarkiina dhidibada loo aasay islamarkaana dib curashadeennu ay hirgelisay qaabshaqeedkeenna wanaagsan ee maamulka suuban ee lagaga soo baxay nidaamyadii tadaaqiisamka qabiiliisamka iyo weliba fikradihii guracnaa ee xambaarsanaa fikradaha dulsaarnimada maxay ciidanka gaarka ee liyu boolisku ay maanta qabtaan maanta maadaama nabadii 100% ay sugan tahay maanta runtii waxaan ka shaqeynaa waa dhanka horumarka iyo shacabka taakulaysa weeyaan maadaama ururkii nabadiidka oo deegaanka laga tirtiro deegaanka 100% uu nabad yahay waxaan maanta culays ka saaraa waxa weeyaan dhanka horumarka danta ummadannada shacabkanaga dhan kastaba inaan maadaama aan kabii shacabka nahay aan ku dhaaranay shacabkanaga wax kastaba inaan maartay aan u qabanayno haday horumar noqoto haday nabadgelyo noqoto marka waxa weeyaan anu waxaan ku qoranahay hada cilmiga milgaha marka waxay ugu dhalatay inay kadib markii aan nabadiidka uu weeqmay oo nabadiidkii aan tirtiray marka ka bacdi waxaan go'aansanay inaan inaguna uga faa'iideyno waxa aan soo baranay danta deeqdii noo keenay waa ka gudoonay waana ku faraxsannahay allaha naga ijaasisiiyo aabbo allaha naga ijaasisiiyo waxaa lagaga soo baxay maamulkeenna suubane markii ay sameeyeen liyuu ficil la sara kacay oo 3 jeer ku dharmaray inuu nabadgelyada sugo markii ay safaysteen dadka qoriga saarteen ubana soodhka geliyeen ayaa samaha lagu leedeeyey waxaa cusub mudan oo lama ilaawaan ah fikirkii sheekh cabdi qaliinle uu 10 sano ka hor sheegay ee ahaa in urtii ugu horeysay ee dawladnimadu timiday iyo inaysan jirin xilli uu soo maray shacabka deegaanka oo ka xumayd xilligaasi kadib markii uu dhageystay qorshihii nabadgelyada ee shirkii dhagax buur uu ka soo jeediyey hogaankii nabadgelyada ee xilligaasi oo maanta ah madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudan Cabdi Maxamuud Cumar iyo hadalkii sheekha ee ahaa in qorshuhu yahay mid wanaagsan oo ay waajib tahay in la qaato haddaba bal 10 sano kadib muxuu sheekh Cabdi Qaliinle ka yiri xaaladda uu deegaanku ku sugan yahay maanta iyo aragtidiisii 10 sano ka hor muxuu arkay xilligaasi markii uu lahaa sheekhu qorshaha nabadgelyadu waa waajib in la qaato 10 sano ka hor yaan anigu sheegay isagoo Cabdi Maxamuud uu hoggaan yahay yaan sheegay inaan muxuu ahaa nabadgelyo taam ah iyo horumar taam in la gaari doono waxaan ka duulay meeja kolkaan ka duulay sidoo madaxweynuhu u socday ee taacada ee dalkiisa iyo dadkiisa uu taacada ugu yahay inuu taa gaari yaan aqridiisana tiina waa la gaaray hadaba maanta waxaan ku soo leenahay nabadgelyo taam ah iyo horumar taam ah iyo isku xidhni taam ah maanta maalin aan ka fiicanahay nama soo marin weligeena faraxow kadib markii xaaladii nabadgelyada meel la saaray horumarkuna uu ka hana qaaday deegaanka ayaa waxaa la qabtay munaasabado waaweyn oo taariikhda deegaanka baal dahaba ka galay munaasabadahaasi qaar ka mid ah haddii aan soo qaadano waxaa ka mid ahaa munaasabadii habeenkii kaali ee Sheraton lagu qabtay oo ahaa habeen taariikhi ah oo ay meel isugu yimaadeen hogaaminta ugu sarreeyay dawladda federaalka iyo dawlad deegaanada dalka iyo marti sharaf tiro badan oo uu ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ee hadda Dr. Mulatu Tashome oo xilligaas ahaa safiir oo lagu soo bandhigay xaqiiqdii qarsooneed ee taariikhda deegaanka Soomaalidu lahaa halkaasna lagaga marakacay xuskii 8aad ee maalinta qowmiyadaha iyo shucuubaha dalka ee 29 hidhaar ee deegaanku martigeliyay xuskii 16aad ee maalinta xoolo dhaqatada dalka iyo waliba xuskii 5aad ee ciidanka difaaca qaranka ee magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka lagu qabtay haddaba munaasabadahaasi iyo sida ay u dhaceen nala daawada
sanaad guuradeeniyo xuskan aan u gobolnay qomiyadaha u gaarka ah waxaan uga goleenahay
miigagan aad arkaysaan ee u dabaaldegaya shacabka deegaanka waxay ahaayeen kuwii garaacayay shacabka shalay isla markaasina meesha shanqadhooda laga maqlo ay shacabku ka carari jireen intaasoo kilomitir bal haddaba aan eegno odayaasha deegaanka ee u soo joogay xilligii ay xaaladda miigu sidan ka duwaneyd iyo dabaaldega maanta hadallada ay ka dhaheen runtii waa maalin farxadeed haddana aniga waxa ii dheer qiiro aad iyo aad xasuus badan igu reebtay waxaad halkan ku arkayseen diyaaradaha miiga ee dalka Itoobiya federaalka Itoobiya uu leeyahay oo dalkeennii ah oo diyaaradaheennii ah laakiin haddii aan isweydiino in yar xasuustu waxay siisay shalay maxay ahaayeen waxay shalay ahaayeen kuwo gumaado hooyooyinkayo carruurtayo lagu gumaado waa xasuus gooni ah oo maanta aniga qiiro fara badan igu reebtay markaan diyaaradahan arkayay dhinac farxad bay iga ahayd oo waxaan arkayay diyaaradihii shalay hooyooyinka ee carruurta naga leynayay oo maanta anigu aan leehay baan maanta arkayay dhinacaas farxad bay ii ahayd dhinacna xasuus qiiro leh bay waxay ii ahayd marka aan maqlo shanqadhooda jawiga wakhtigaa joogay sidee buu ahaa taariikh la sugano si cad wuxuu qeexaa sax iyo qalad wixii dhacay